lixdii subaxnimo ee saaka ayaa waxaa magaalada Buuhoodle si rasmi ah uga bilaabmay dhaqdhaqaaq ballaaran oo loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo kamid ah golaha madaxtooyada maamulka Khaatumo iyo wafdi uu hogaaminayay oo ka soo kicitimay qaar kamid ah deegaano hoos yimaada gobolka Sool halkaas oo madaxweynuhu ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dadweyne fara badan oo isugu jira isimo culimo awdiin cuqaal ururada hooyooyinka iyo kuwa dhalinyarada oo ku labisan astaanta calanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale xubno sare oo ka tirsan golaha deegaanka dawladda hoose ee Buuhoodle ayaa waxay waftidani kaga hortageen deegaanka Dandan oo ilaadii 25 kiiloomitir dhanka bari ka xiga magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa ku wehelinayay Garaad Mashqare oo kamid ah golaha sare ee dhaqanka maamulka Khaatumo iyo waliba xubno kale madaxweynaha ayaa soo dhaweyn ka bacdi bulshadii halkaasi ku soo dhaweynaysay kula hadlay barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium ee magaalada Buuhoodle oo isugu soo baxeen boqolaal dadweyne ah oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa madax dhaqameedka deegaanka Caymeed halyeeyga Khaatumo Garaad Maxamuud Cismaan Mashqare shacabweynaha ka soo qalay dhammaan maxay ahayd nuucay yihiin bawaydi salaamu calaykum wa rahmatullaah anoo wafdigan aniga iyo garaadka ka kooban hadidkeeda leeyahay magaciisa ku hadlaya inaan idinka mahad celiyo soo dhaweyntan qiimaha iyo qadarinta mudan ee gobolka Caymeed sidii looga yaqiinay maanta kaba badbadiyey muxuu ahaa haddii alla kuu sameeyo ogol inaan idinka mahad celiyo aad baad ugu mahadsantihiin haddaan intaan ka gudbo waanu idiin nimi aniga iyo garaadku garaad cali oo isna inuuna soo raaca ahayd shaqo yar buu yeeshay wax jibigeliya waa naga daba iman doonaa galabta haddii aan la idmo maxay ahaydtay waxaan munaasabadda rabaa mar kale inaan uga tacsadeeyo mujaahidiintii ku dhimatay sida waxashnimada aan loogu laayay magaalada madaxda Khaatumo ee Taleex dhanka kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Garaad Mashqare oo kamid ahaa wafdigii madaxweynaha la socday ugu dambeynna waxa hadalka soo xiray Suldaan Siciid oo kamid ah golaha sare ee dhaqanka maamulka Khaatumo waxa farxad iyo hayrayn iyo qiiray ah shacabka Cayn sida sharafta iyo karaamada iyo iska iyo maamuus kale oo ay noogu soo dhaweeyay wafdiga yagii ka koobna madaxweynaha iyo aniga iyo xiyaarti kale nala socday wuxuu noqon doonaa soo dhaweynaan la ilaawi doonin oo qalbigayga iyo jiirkayga in badan ku rafata waa waqti salaada waxaan jecelahay waxaan oran lahaa waa dhintaysanayaan waa dhaqaalaysanayaan waxaanu cambaaraynanaa weerarka qaawan oo maalinta dhacay waxa Soomaalidu waxay tahay dadka qaar baa ka hadlay isimo iyo odayaal dhaqan iyo dad baa ka hadlaydo way ku mala khasaareen waxay yiraahdeen beero dagaalamaya iyo baan u soconay heshiisiintooda Soomaalidu waxay tiraahdaa qorax soo baxday shacabka lagu qarin karo waxay ahaayeen ciidankii Puntland oo la soo abaabulay madaxtooyada iyo laga soo abaabulay iyo BS iyo Sarisom iyo police iyo waxa la wixii ciidan leh kuwaas oo sitay hubkii cashuurta la inooga qaaday oo shacabkooda lagu gumaalayo waanu cambaaraynaa waa ka xunahay dad yowgii ka hadlay oo yiri waxa weeye beero dagaalamay baan heshiisiinana waa ku mala khasaareynay taladu way ka murqacatay waa ku ilduufeen iyagana waxaan leenahay tubta toosan Allah idin tuso madaxweynaha iyo waftigiisana waa soo dhaweynaynaa iyo aadaan u soo dhaweynaynaa kalgacalkaan idinku soo dhaweynay waa aragtaan waxaan ku soo dhaweynaa madaxweynaha Khaatumo sida Soomaaliya iyo mujaahid Mashqare Garaad Mashqare soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa noqonaysa tii ugu ballaanayd ee inta la xasuusto ka dhacda magaalada Buuhoodle dhanka kale madaxweyne Indhasheel ayaan wali shaacin safarkiisa ku aadanaa deegaankani Buuhoodle Cabdi Casiis Aadan Jaamac Somsad Buuhoodle